بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد xubnaha labada gole aqalka hoose iyo aqalka sare mas'uuliyiinta kale oo dawladda marti sharafta kale haybadeeda wadatee ka soo qayb gashay munaasabadda agaasinka wanaagsan leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib waa farxad bay noo tahay inaan halkan soo gaarno madal wax lagu saxo oo doodi ka furan tahay oo wixii soo qaldamay gadaal loo milicsado ciddii soo abaabushay oo ama waqti gelisay ama ra'yi gelisay waxaan leeyahay jisaakumulaahi waa ku mahadsan yihiin waana soo dhaweeyaynaa oo waa ra'yi wanaagsan guud ay dhiway intaas kadib waddanku meelo badan uu ka burbursan yahay sida horey loo sheegay annaguna hadda aan buuxinaynana wax ka xaaraan uma jiraan waddankeenna marka waqti lagu saxo qaladaadkii faraha badnaay oo aan la koobi karin oo na soo maray iyo madal lagu saxo ciddii noo diyaarisay waa aadaan maaragtay aanu ammaanaynaa intaas kadib siyaasadda keliya kama jiranin meelo badanaan ka jiranna bulshaduna waa qaybsantaho items kala duwan ay leedahay marka waxaan anigu marka hore taladayda ku bixi lahaa shir kastoo la qabanayo iyo meel kastoo la isugu tegayo balansiga bulshada in la ilaaliyo oo qolo walba ay ra'yigooda keenaan ilaa qolo laga maarmi karaa ma jirti saas markaan leeyahay waxaan u jeedaa aniga waxaan ahay oo laygu sheegaa nabadoona la yiraahdaa magacaasna dad badan ay la wadaaga saad ogtihiinba oo bulshada ku leh saameyn badan shirarkana ma yimaadin oo loogama yeero marka inaan waaga wanaagga dhabidiisa lagu dhicin taas waxay ka tahay tusaale hadda meeshaan kuufi badan igama muuqato aniga lafteydana hadda markii la igaga yeeray waa saluuga ugu jiray markii waxaan garanayay wax badan oo soo socday oo maaragtay noocaas u eg marka waxaan rabnaa waxaa la yidhi Soomaalidu waxay tiraahdaa reer nabada looma tali waayo bal horta inaan nabad helno aan ka bartiirayno doodaha waxaa lagu gaari doonaa saan isleeyahay horumar badan oo kala duwan saad ogtihiinba kuma faraxsanayn wax badan oo waddanka soo maray marka haddaan fursad u helno meel aan ku sheegno waxaan ugu jiroon xambaarsannahay waxaan isleeyahay waxay fududaynaysaa in laga gudbo mushkilada badan oon isleeyahay waa kuwa idin daashaday waxa kaleeto oon maaragtay ayadana aad ugu faraxsanahay wujuuda kala duwan iyo afkaarta kala duwan oo meesha wada fadhiyahay waxa wax badan looga gudbi karaa oo shida ah ama isfahmi way ah wada hadalka laftiisa waxaan ii muuqda rag badan oon isleeyahay maanta inaad is aragtaan waxay bilow ka tahay horumarka iyo nabadgelyada iyo isfahamka taasaan maaragtay ku faraxsanahay marka madasha si buuxdaan ugu mahad celinahay anugu waxaana iga codsiya shirarka aad qaban doontaan odayaasha door muhiima ka siiya odaygu saad ogtihiinba waxa in la qaybiyo maaragtay la cadaalad sameeyo waxaa ugu habboon qofku markaas wuxuu xambaarsan yahay qofkaan xil rabin qofkii nabad raba qofkii waayeela qofkii wax badan soo joogay qofkii maalintii wax qalloocdeen ilaa hadda shuhada ahayoo taagnaay qofkaasi marka cadaaladna oo isagu hadda aan markaas tacasubaynin oon xil rabidiis iyo xoolo rabidiis midna aanay dadejinaynin oo laga yaabay cimrigiisuba inuu maaragtay la tacaalaaho oo gabawsi yahay qofkaasi waxaa laga heli karaa sixitaan fara badan
marka madasha waxaan ka codsanaynaa hoon u sheegayaa in odayaasha dowr shariifa la siiyo dabcan waxaan is leeyahay mana lagu darsan doono waxbay maaragtay ay toosi doonaan haddii alla edmo wada hadalkaana inaan meeshaan soo gaarno aad ay maaragtay farax geline waxaana is leeyahay wax badan loogu gudbi doonaa in badanaad mahadsantihiin hada wabillahi tawfiiq